marar badan ka hadla waxaa ka mid a ninkan aan su-aal weydiin soomaalida shuruudda soonku ku asaxan wax kamida ma taqaanaa oo cuntada ku jira ma taqaanaa ha saabuuska soo kamid maaha soomaalida shuruudda soonku ku asaxan saabuuskaa ugu jira haddayna saabuus ku afurin haweentiina inay afur samaysayba gabadhii uma haysato raggiina saabuusa duubiiska ka waayey afur fiican in la sameeyeyba looma haysto haddana cunno karinteeda ka dhib badan oo ka dheefyar weligay ma arag karintiisa hilibka lagama maro oo bariiska lagama maro oo ugaali lagama maro oo sabaayad iyo canjaro lagama maro waxa ugu dhib badan ee la kariyo ee la sameeyo waa saambuus waxa ugu nacfiya dheefyarna waa isagoo haddii salaada la aqimo waa inta adaanka iyo aqinka u dhaxaysa uu yahay buu u suubadaa cuntada soomaalidu ay ka tegayseen waqtigeedii la dhaafay maxay ku mataa lama taqaanaa saambuus laga aqimay bay dhahaan taa waa saambuus laga aqimay mar haddii la aqimo cuntada kalea loo soo noqdaaye isagu muxuu yahay waqtigiisu waa lagu afuray waa la goostay wey wixii taniya saaka marna la fidinayey marna la xashayey marna la karinayey marna la isku rogayey barqadii ilaa maqribkii la waday waaba aadaanka iyo aqamka inta udhaxaysa wardhib iyo dheef ka badan gabdhu intay qur-aan akhrisan lahaayeen jus dhammaysan lahaayeen salaad tukan lahaayeen saamuus bay ag fadhiyaan warnimayo haddii aan waxaan dhihi lahaa dawlad hadday jirto wareegta ramadaanka saamuuska la mamnuuca la soo saaro gabdhuhu ha ka nastaan ha ka cibaadaystaan waxaan rabaa intaan idhaahdo innagii dhannaaba waxa hamigeennu cuntuu noqday bisha ramadaan maraad ka welwalayso maraad ka fikirayso mar dab lagu jiro mar bakhaar la taagan yahay iyo dukaan wardii aynu yarayno cuntada وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى